السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشا كحرين جانك مالمها waxaan rabnaa in aynu idinla wadaagno isla markaana idin xasuusino maalmo aad u khayr badan oo nagu soo socda sidii aan uga faa'iideysan lahayn isla markaana aan ajar fara badan oo kasban lahayn. waa maalmaha bisha Dulxijja ama loo yaqaano Carafo. maalmahan waa maalmo aad u qiimo badan. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku sheegay quraankiisa qiimaha ay leeyihiin. rasuulkiisana calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga hadlay xadiis taas oo ku tilmaamay maalmahan faa'iidooyinka iyo qiimaha ay leeyihiin. bal aynu aragno waxyaabaha culimada Soomaaliyeed ay ka yiraahdeen maalmahan. انتبه يا عباد الله، انتبه يا عباد الله، انتبهوا يا عباد الله. الحجة أما عرفة سيدة الصوماليد وطقان بشان باللوغة هذا إلى طبانك بريء أهرية وطبان بريء ووطه خير سيادة هي فضل السيادة. تانا waxay ka sugan tahay nabigeena salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi waxa uu rasuulku leeyahay ma jiro maalmo amal wanaagsan oo la sameeyo uu ka khayr badan yahay tobankan maalmood dhexdooda amalka la sameeyo. yaani amal khayr ah oo ilaahi loogu dhawaado waxa ugu fadli badan sanadka oo dhan maalmihiisa. maalmahan tobankee bisha Dulxijja amalka lala yimaado ayaa ugu fadli badan. saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waxay nabiga weydiiyeen arrin ayaga agtooda caan ka ahayd inay wax la sameeyo ugu fadli badan tahay. markuu nabigu yidhi camal maalmahan la sameeyaa ugu fadli badan waxay yidhahdeen rasuul ilaahayow حتى جهادك إلهي جدك يسلوه جهاد مية كفض بديه نعماش مالمها الله سمعيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ها حتى جهادك وكفض بدنته إلا هل ننموي ننكاسو حوله سي النفتي سيبا قوب تلتقي. وفي رواية ما لها خطرته هلست ألق علي كدبنا أن نفنا الله صون نقنين حولنا الله صون نقنين. xaaladda iyada ah oo maalmo kala dhacday oo tobankan maalmood dhexdooda ahayn ayada lama gaari karo. laakiin wixii inta ka soo haray maalmahan dhexdooda waxaan ahayn maalmo la mid ah oo toban bari ah oo aan tobankan ahayn jihaad aad gashay nafna ayna kaaga tagin xoolihiina aad la soo noqotay maalmahan amalka la sameeynaya ka fadli badan macnaha xadiisku sidaas weey. انتبه يا عباد الله، انتبه يا عباد الله، انتبهوا يا عباد الله. إلا عذابه dad badan maalmaha aan garanaynin oo iska socda uun waxa ayaan daraa marka walaalayaal inaanu garanayno oo maalmaha ay nooga soocan yihiin maalmaha adduunyada qaarkoodna ama inta badanba wax nafciya aan noolahayn. hal la xasuusan yahay maalinta xornimada la qaatay waxa la xasuusan yahay xataa maalintii faraxalka waxa la xasuusan yahay maalinta la xusayo banooniga la xusayo ama koobka lagu tartamayo waa la xasuusan yahay maalmaha kalena way nooga duwan yihiin. laakiin walaalayaal maxaa dhacay oo dareenka diineed inaga qaaday waan u garan la'nahay maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa uu deeqda faraha badan uu siinayo. leanna waxa weeye qofku marka uu xasuusan yahay maalmahaasi fadliga ay iska leeyihiin markaas uunbuu shaqeeyaa oo uu cibaadaystaa oo uu dadaalaa. waxay dadka ganacsatadu ay og yihiin oo ay xasuusan yihiin mawaasimta tijaariga ah ama maalmaha ganacsigu uu aad u fiican yahay ama ganacsigu aad ribixa iyo faa'iidada looga helayo maalmaha kale way uga duwan tahay. waxaa la doonayaa marka walaalayaal maalmaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu deeqda bixinayo inay nooga duwan yihiin maalmaha kale. انتبه يا عباد الله، انتبه يا عباد الله، انتبهوا يا عباد الله. إخواني أخواتي وحن جعلها إنا نسحسوسنو من باب قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إلهي وحوري اسحسوسية حسوسينتو وحي أنفع سادتك مؤمنين تا
marka waxaan isxasuusinaynaa hadihi alayaam waxaan bilaabaynaa ayaamihii loo yaqaanay 10 cisho ee dulxija. ayaamaha culummada islaamku waxay yidhaahdeen waa ayaamaha uu ilaahay kitaabkiisa qur-aanka ku dhaartay suuratu lfajri markuu ilaahay yidhi subxaanah waalfajri walayaalin cashr. 10 habeen ee ugu fadli badan 10 ayaamood ee ugu fadli badan uu ilaahay ku dhaartay ayaa lagu tilmaamay ayaamahan 10 ah ee bisha dulxija. انتبه يا عباد الله انتبه يا عباد الله انتبهوا يا عباد الله. الحمد لله إلهي باب مهدل waxaanu doonaynaa maalmo oo kamida maalmaha sanadka ku jira amase shuhuurta bilaha 12 ku jira fadaa'il oo khaasa iskala ama gooni gaar ahaaneed inaanu maaragtay ka hadalno oo aanu u sheegno dadka Soomaaliyeed oo muslimiinta ayaamahaas fadliga iska leeyihiin iyo sida ay kala yihiin wixii ilaahay iyo rasuulkiisu ay ka yiraahdeen aynu wax ka soo qaadano. rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam ayaamaha kan sida uu u tilmaamay xadiis uu wariyay imaam Bukhari-na uu wariyay Abu Daawud-na uu wariyay Tirmidhi-na uu wariyay laakiin hadda lafdiga kan lafdiga Tirmidhi uu yahay xadiiskan waxaa laga wariyay saxaabiga jaliilka oo la yiraahdo Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam. وهو عبد الله بن عباس رسولك كوري عليه الصلاة والسلام قال إنه يرنمه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وهو رسول كان عليه الصلاة والسلام مال مجران أيوده أو عمل صالح لحظة الله سمايه مال أو عمل صالح للي ماذا مجران oo amal saalixa lagu sameeyo maalmayaalo oo amal saalixa lagu sameeyo dhexdooda ma jiraan oo alla looga jacayl badan yahay min hadhihi al-ayyam al-ashr maalmaha kan oo 10 ah laga bilaabo sida hadda aynu joogno 10 bisha Dhulhijja Soomaaliduna Carafada u yaqaaniin. Carafa waa maalinta sagaalaadka laakiin bishan waxaa la yiraahdaa Dhulhijja ayaa la dhahaa waa bishii 12aad oo sanadka islaam muslimka ama sanada hijriyada ay ku dhamaahaysay. marka maalmaha kan oo 10 ah waxa weeye maalmo cajiiba waaye amal maalmo la sameeyo oo maalmahan amal lagu sameeyo laga jacayl badan yahay ma jira ayuu rasuulka kaleey salaatu wasalaam. markaasay saxaabadii nabiga dhageysanay waxay yiraahdeen يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله جهاد إلهي في سبيل الله لغو جهاده ولإعلاء كلمة الله الله دقالمه حتى فضلكم الأمامية. رسولك عليه الصلاة والسلام مركز سعوده ولا الجهاد في سبيل الله حتى الجهاد في سبيل الله ما المها كان طبنك عملك الغصة أياك خير بدن أوضح إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء نور رسولك إلا ندمو ياني نفتيس لبح أيو جهاد كلا آذي مالكيس قاتي وحبنا أنا كلا صون نقونين أو جهاد كمركو تغا نفتي كواي مالك كواي ننكاس مو ياني انت كلا انتود أياك فضل بدن أوضح محاك هاقا موقنايا مرك وحاكا موقنايا مالمها كانوا وحسهلا إنا يسانهين هذا مالمهاس كفائدة سبي ربان وين ضافايا مالمهاس انت اي سعودان وين انه كفائدة سنو. انتبه يا عباد الله انتبه يا عباد الله انتبهوا يا عباد الله. ولا ليال ساد اوكتيهين waxaa noo bilaabanaysa 10 maalmood oo aad iyo aad u baraka badan 10 maalmood oo aad u fadli badan 10 maalmood oo qofku ay suurtagal tahay ilaahay inuu naar ka xoreeyo subhanahu wa ta'ala. waxayna soo socda waqti aad maaratay aad u qiimo weyn waxayna soo socda waqti qofka ka faa'iideystay ilaahay ajirka u laalaabayo subhanahu wa ta'ala laalaabiyaal aad u fara badan baynu soo socda walaalayaal iska ilaaliya waqtigan ayaan maaratay lagu luminin qiila waqaal iyo maaratay fadhi ku diriyada fadhigeesa yaan lagu luminin waa waqti aad iyo aad u qiimo badan
haddaad og tahay inaad 1 milyan oo karoon lagu siinayo ama 1 milyan oo dollar aad helaysid waqtiyada kamida waxaan muran lahayn habeen iyo maalin waad soo jeedaysaa waan u kaartaynaysaa maxaad maranaysaa aayatiinkaagii dambe iyo mustaqbalkaagii dambe oo aad guulaysanayso liibaan aad iyo aad u baaxad weyn انتبه يا عباد الله انتبه يا عباد الله انتبهوا يا عباد الله walaalaya waxa loo baahan yahay maadaama amalka la sameeyo tobankan dilxija la sameeyo uu khayr badan yahay oo mudaacaf uu yahay oo acmaasha kale uu ka dhibca badan yahay oo uu ka qaalisan yahay maalmaha kale oo uu ka lambar sareeyo maalmaha kale in aad uga qaniimaysato ayaa qof walba muslim oo muhiim ku ah لأنه waxaa dhici karta in dib uusan ku soo marin ayaa dhici karta tobanka dilxija bisha dilxija carafa ay soo socota inaadan gaarin oo naf aadan ku gaarin ayaa suurtagal ah Soomaaliduna waxay ku mamaahan waxay yiraahdaan roob intuu da'ayo ayaa la doogtaa sidaas awgeed tobanka dilxija intay da'ayso oo khayraadkeeda iyo nafaxaadkeeda iyo barakaadkeedu ay da'ayaan aanu doogano walaalayaal nafaxaadka Ilaahay raxmaadka Ilaahay barakaadka Ilaahay oo da'aya oo shubmaya maalmahan tobanka ah aanu walaalayaal doogano aanu u soo banbaxno albaabada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dambi dhaafka laga helayo albaabada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo dalacsiinta laga helayo albaabada Ilaahay oo laga helayo naarta xureynteeda laga helayo aanu u soo banbaxno walaalayaal Ilaahay subxaanahu wa ta'ala walaalayaal hana arko tobankana inay nooga duwan yihiin maalmaha kale inay nooga duwan yihiin inaanu xasuusanayno tobankani qiimaha iyo khayrka iyo fadliga Ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin Ilaahay hanugu arko walaalayaal gaar ahaan walaalayaal maanta waxaanu isku baraarujinaynaa inay sunno tahay in la soomo 9 maalmood maalinta ciidda 9 maalmood oo ka sokaysa in la soomo waa sunno nabigeena jideeyay sallallahu wasallam wa baraka calayhi qofkii markaa yani 9 maalmood xataa wada soomi waaya yaysan ka fakanin ugu dambeysaysan ka fakanin maalinta carafo waa maalinta bisha dilxija ay 9 tahay maalinta 9aadku yuusan ka fakanin haddii maalmihii kale aad soomi weysay oo awoodi weysay oo shaydaanka iyo naftu ay ka adkaadeen halka maalin ku mitid walba ugu dambeyn waa maalinta carafo maxaa yeelay nabigeena sallallahu wasallam wa baraka calayhi xadiiskii imaamu muslim saxiixiisa ku warinayay su'ila rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam can sawmi yawmi carafa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa la weydiiyey maalinta carafo soomkeeda ayaa la weydiiyey nabiga sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay oo maalinta carafo soonkeeda maxaanu ka helaynaa ayaa lagu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri yukaffiru sanata almaadiyah walbaaqiyah sanadkii ku soo tegay ayaa ilaahay kugu dhaqaa iyo sanadka soo socdana ilaahay waa kugu mayrahayaa oo ilaahay waa kugu dahirinaya oo ilaahay dambi dhaaf kugu siin waa takfiir sanatayn yani 2 sano dambi dhaafkood ayaa halkaas maalin soomka aad sooman tahay ayaad ku helaysaa buu yiri nabigu sallallahu wasallam wa baraka calayhi maxaa kaaga qiimo weyn maxaa kaaga khayr badan ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa alla deeqsi ah waa alla deeqsinimadiisu ay ballaaran tahay oo wax la barbar dhigi karaa aysan jirin walaalayaal hal maalin oo aad soomtay oo kali ah ayaa ilaahay wuxuu kugu siiyey 2 sano oo dambi dhaaf ah 2 sano wixii dambi aad galaysay ayaa ilaahay kaaga tirtiray addoonka marka dayacaya fursadda qaaliga ah ama se aan yani iska moogba oon daraynsanayn ama intuu muxaadaradan dhageystay haddana aan ku camal falaynin oo axaadiistan intuu dhageystay fadliga ay iska leedahay yowmu carafa dhageystay haddana iska dhegatiraya waa addoon naftiisii dayacay waa addoon caduwun linafsihi waa qof naftiisii cadow ku ah waa qof naftiisii aan yani danaynaynin masaalixdii nafsadiisa iyo meesha horumarka adduunyo iyo midka aakhiro laga helayo sharafta adduunyo midka aakhiro meesha naftiisa ay ka helayso qof aan daraynsanayn oo naftiisii dayacay weeye walaalayaal انتبه يا عباد الله انتبه يا عباد الله انتبهوا يا عباد الله عملك اللي قبنا يوم حويه فضلك سلو فايديستو الروح فايديست محلو بهيه حديث كسيدة كعب نبي صلى الله عليه وسلم وحي العمل الصالح وحاسوق لي هذا عمل كستو وناكسن وشروط صلاح أفصدي
camalka saalixa waxaa soo gelaya salaadoo la badsado, tii waajibka ahaydoo la ilaaliyo iyo tii sunnada ahaydoo la badsado. waxaa soo gelaya camalka saalixa ah soonka, waxaa soo gelaya sadaqada, waxaa soo gelaya dadkoo diinta la baro khayrka loogu yeedho xumaantana laga reebo, waxaa soo gelaya dikriga rabbi tabaaraka wa tacaala iyo xuskiisa iyo qur-aanka akhriskiisa. wax kasta, camal kastoo la jideeyo ilaahay loogu dhowaado ayaa soo gelaya alcamalu saalix. sidaas daraaddeed majaalaadka khayrka ee addoommadu ilaahay ay ugu dhowaan karaan iyo turuqdu aad bay u fara badan tahay. waana rabbi tabaaraka wa tacaala mawsim uu ugu talagalay inay dadka ahlulkhayrkii tartamaan, in la tartamo oo mawsimkan loo tartamo sida xilliyada mawaasimta adduunyada iyo tijaarada iyo ganacsigu uu taagan yahayba tartan loogu gala adduunyada oo bilaha suuqyada iyo ganacsigu kala socdo. sida dadaalka siyaadada loogu galo si aan lagaaga faa'iido badanin, waxaa ka habboon mawsimka aakharo in aan tartankiisa lagaaga badanin oo ka faa'iidaysigiisa aan lagaaga badsanin oo ribixiisa aan lagaaga badsanin. fikirku inuu dhankaa u bato baa laga maarmaan ah. sida aad dadaalka ugu jirto mawsimka tijaaraadka iyo beecaha iyo shiraha aan nin walba ka faa'iido badso u leedahay, soo kama habboona adduunyada iyo ganacsiga adduunyada wax ka khayr badan oo ganacsi aakhara ah inaad tartankiisa gasho. laa shak ciddii caqli loo garasho leh allana waafajiyo waa garan karaa. انتبه يا عباد الله، انتبه يا عباد الله، انتبهوا يا عباد الله. marka camalka saalix ahi waa baaxad weyn yahay. laba qaybood baan u qaybinay camalka saalixa waa maalmaha la qaban karayo. qayb waa qayb adigu aad samaysanayso jadwalkeeda aad dejinaysid weeyaan. qaybna waxa weeyaan waa qayb sharcigu maarta asagu jadwalkeeda uu ku dejiyay oo haddaad ka faa'iideysanayso. maxaa yeelay fursada qofna waa sameeyaa midna waa loo sameeyaa, labadiba waa leedahay maalmahan. adiga ayaa jadwalkaaga samaysan karaya, waa isweydiin karaysaa waxaad leedahay maalmahan maxaan qabtaa talow. camalkan waa la uga faa'iideysaa, waxay ku xiran tahay duruuftaada. waxa dhici kara inaad shaqaysid, waxa dhici kara inaad jiran tahay, waxa dhici karta inaad musaafir tahay, waxyaalo kale ayaa dhici kara. waxa dhici karaya inaad fursad haysatid oo saan ogahay ardada qaarkood inay fasax ugu soo aadaan dhici karaysa maalmahan, ma garanaysaa. marka dadkii fasax helaahi ayaga laftigooda waa inay samaystaan barnaamij ka duwan dadka kale ka duwan maarta. had iyo jeer jadwalkaaga waxaan u qaybiyaa acmaasha laba qaybood. camal adigu aad jadwalkiisa samaysanayso, qur-aankan xifdinaya, qur-aankan khatimaya, tasbiixaadkan badinaya, sadaqan la baxaya, qaraabaan xiriirinaya, agoon baan wax u tiraya, masaakiin baan maarta wax u qabanaya. kaasi waxa weeyaan waa jadwal adigu aad samaysanayso oo ilaahay agtiisa aad ku xisaabtamayso subxaanahu wa tacaala. midna waa mid lagu dejiya adiga maalmahan oo aad ka faa'iideysanaysid inaadan luminin fursadaas u baahan. jadwalka lagu dejiya maxaa ka mid ah? maalmahan waxaa loo dejiyay cumro iyo xaj ciddii awoodi karaysa. dadka dhan ma waa awoodi karayaan, laakiin ciddii awoodaahi waa fadli aad iyo aad u weyn. rasuulku wuxuu yidhi cumro ilaa cumro laga gaarayo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembiga ayuu ku dhaafaa. xajka sida ilaahay ugu talagalay loo gutona abaalgud ma laha janno mooyaan buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. walxaju lmabruur laysa lahu jazaa ila aljanna ayuu rasuulku yidhi calayhi salatu wasalaam. xajkuna maalmahan buu dhacaya. arrinta labaad ee naloo jideeyey oo aan ka faa'iideysan karayno waxa weeyaan inaan tasbiixda iyo tahliisha iyo taxmiidda aan badino. subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah inaan badino weeyaan oo rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta badiya ayuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam maalmahan badiya. انتبه يا عباد الله، انتبه يا عباد الله، انتبهوا يا عباد الله. haddaba daawada ka faa'iidayso maalmahan khayrka badan, iskuna day inaad kula timaado wixii aad kari karto cibaado ah. fursaddu waa ay ku furan tahay, iyaan lagaa badsanin khayrka. fadlan waxaad gaarsiisaa walaalaha kale ee Soomaaliyeed. mahadsanid.